gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa sheegay in loo baahan yahay in gurmad bini'aadanimo loo fidiyo dadka ku dhibaataysan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay saameyn xooggan ku yeesheen fatahaadaha uu sameeyay webiga Shabeelle. Gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland ayaa sheegay dadka ay la soo daristay dhibaato aad u adag sidoo kalena aanay jirin wax colaad hoose ah oo u dhaxeeya bulshada magaaladaasi iyo bulshada Somaliland sida uu hadalka u dhigay. Gudoomiyaha oo Arbacada 6 November warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sidoo kalena mar uu ka jawaabay su'aalo laga weydiiyay in xukuumaddu ay joojisay gurmad taakula ah oo bulshada Somaliland u waday dadka Beledweyne ayaa sheegay in aanu arrinkaasi maqlin suurtagalna aanay ahayn in talaabadaasi oo kale xukuumaddu ku kacdo sida uu hadalka u dhigay. waa niman Soomaaliya waa dadkeennii iyo dalkeennii colaad bayna dhex martay hoose ileen waa Soomaali aafa soo gaadhay biyaa qaaday dad baa meel walba dumiyay haddaydan wax kale ku tarayn arday u duceeye ilaahay ha gargaaro ilaahay ha ka qaado waa barwaaqe ilaahay inteeda aafadeena ha ka duw wax kale niraana garan mayno haddaynu waxaynana dee dadkaa la mid tiire tabarucaad sii u dira oo sadaqo. dhinaca kalena gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland waxa uu si weyn u soo dhaweeyay heshiiska xabad joojinta ah ee ay wada gaadheen labada beelood ee muddada dheer ay colaadu ku dhex maraysay degmada Ceelafweyn isagoo oo sheegay in heshiisku uu eg yahay mid hirgelaya sababna u noqonaya nabad waarta oo labadaasi beelood ka dhex dhacda. nabadda hore u gaadheen waanaynu ku wada bogaadinay shalay waxay la tahay dabaaldegi uun baa way dabaaldegayeen ilaahay noo aqbalo in dadkeena iyo dalkeena iyo qarankuba nabad inoo yahay waa inoo wada dan kuwa isku dhiig baxayna waa u sii dan haddii ilaahay soo hadeeyeyna waxaynu leenahay un ahlan wasahlan intii aan idinka weynay baa garateene ilaahay haydi kala badbaado. Shabcaan Maxamed Xaaji Dhagax wararka laanta afka Soomaaliga telefishinka codka bariga Afrika magaalada Hargeysa. si aad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaan geli channelkayaga YouTube-ka ama dooro bogaggayaga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka.